Saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan falanqaynta ciyaaraha. Caawa waxaa jira kulamo waaweyn oo Champions League ka tirsan, waxaana jira 4 kulan oo ay isku arki doonaan kooxo taariikhi leh iyo kuwa doonaya inay muujiyaan awooddooda. Barcelona waxay wajaheysaa kooxda Newcastle, Liverpoolna waxay la ciyaareysaa kooxda Galatasaray, halka Bayern Munich ay la kulmayaan kooxda Atalanta, halka Atletico Madrid ay wajahayaan kooxda kubadda cagta ee Tottenham. Kulamadani waxay noqon karaan mid go'aamiya cidda u sii socota tartanka, waxaana la filayaa xamaasad, farsamo iyo ciyaar aad u adag. Aan mid mid u falanqeyno kulamadan waaweyn. Barcelona waxay u baxaysaa kooxda kubadda cagta Newcastle. Kooxda Barcelona waa mid ka mid ah kooxaha ugu caansan kubadda cagta. Barcelona mar walba waxay caan ku tahay kubad-hayn iyo ciyaar farsamo sare leh. Taageerayaasha Camp Nou waxay sugayaan habeen kale oo Champions League ah oo kooxdu ay muujinayso qaab ciyaareed aad u qurux badan. Dhanka kale, Newcastle waa koox sanadihii ugu dambeeyay oo degdeg u soo koraysa. Newcastle waxay caan ku tahay pressing xoog leh iyo sidoo kale ciyaar jireed. Weerarka kooxda kubadda cagta Barcelona waxaa hogaaminaya ciyaaryahanka lagu magacaabo Lamine Yamal iyo sidoo kale Raphinha, halka Newcastle weerarkooda uu hogaaminayo ninka lagu magacaabo Sandro Tonali. Si walba ha ahaatee, kulankan waxa uu noqon karaa mid xiiso leh sababtoo ah Barcelona waxay jeceshahay kubad-hayn, halka Newcastle ay isku daydo inay kubadda si degdeg ah ugu qabsato kadibna weerar sameyso. Haddii aan fiirino kulanka labaad ee u dhexeeya kooxaha kubadda cagta Liverpool iyo sidoo kale Galatasaray, kulanka labaad waa mid taageerayaal badan sugayaan. Kooxda Liverpool mar walba waxay noqotaa mid aad u khatar badan marka la joogo kulamada Champions League. Anfield habeenkii Champions League waa meel u gaar ah taageerayaasha Liverpool, waxayna abuuraan jawi aad u adag oo kooxda kale inay badiso aad u adag tahay. Halka weerarka Liverpool waxaa hogaaminaya ciyaaryahanka lagu magacaabo Mohamed Salah oo ciyaaryahan marar badan go'aamiya kulamada waaweyn. Dhanka kale, Galatasaray waa koox leh taageerayaal aad u kulul. Galatasaray mar walba waxay isku daydaa inay si geesinimo leh u ciyaarto kulamada Yurub. Kulankan waxa uu noqon karaa mid xawaare sare leh sababtoo ah labada kooxood waxay jecel yihiin inay mar walba weerar qaadaan. Waxaana kulanka saddexaad isugu wajihi doona kooxaha kale ah Bayern Munich iyo sidoo kale Atalanta. Kulankan saddexaad waa mid ka mid ah kulamada ugu adag. Kooxda Bayern Munich waa mid ka mid ah kooxaha ugu awoodda badan dunida ama Yurub. Bayern mar walba waxa ay leedahay weerar aad u xoog badan iyo sidoo kale ciyaar degdeg ah. Garoonka marka la joogo Bayern Munich, Champions League wuxuu noqon karaa mid aad u kulul, taageerayaal ay riixaan ciyaartoyda. Dhanka kale, Atalanta waa koox caan ku ah si joogto ah inay weerar celin u qaado, maadaama ay ka soo jeedo koox Italiyaan ah. Mar walba waxay isku dayaan inay cadaadis saarto kooxda kale ee kasoo horjeeda. Kulankani waxa uu noqon karaa mid aad u xiiso badan sababtoo ah kooxda kubadda cagta Atalanta waxay soo reebtay koox kale oo Jarmal ah oo Borussia Dortmund, taasoo ay comeback 4-0 ay ku sameeyeen. Haddii aan fiirino kulanka kale ee u dhexeeya kooxaha Atletico Madrid iyo sidoo kale Tottenham, waa kulanka ugu dambeeya caawa Talaadada laga ciyaari doono UEFA Champions League. Kooxda Atletico Madrid waxay caan ku tahay difaac adag, nidaam ciyaareed aad u xoog badan oo uu dhisay Diego Simeone. Inkastoo kulankii ugu dambeeyay ee u dhexeeya Barcelona ay caqabado waaweyn ay hareeyeen daafacooda, taasina ay sababi kartay in laga bareejo goolashii ay lugtii hore dhaliyeen. Atletico Madrid mar walba waxay ku fiican tahay counter-attack iyo inay si fiican u difaacdo, balse dhanka kale Tottenham waa koox jecel weerar degdeg ah. Ciyaartoyda sida uu ka mid yahay ciyaaryahanka lagu magacaabo Dominic Solanke waa ciyaaryahan khatar u noqon kara difaaca Atletico haddii aysan helaan fursad ku filan. Kulankan waxa uu noqon karaa mid xeelad badan oo labada kooxba ay si taxaddar leh u ciyaaraan. Saaxiibayaal, ugu dambeyntii, kulamada Champions League waxay noqon karaan kuwo aad u xiiso badan sababtoo ah kooxo waaweyn ayaa isu arkaya. Habeenno waaweyn oo kubadda cagta Yurubna way dhici doonaan. Haddii aan ogaado fikradaada kulamadan, kee u aragtaa inuu noqon doono kulanka ugu xiisaha badan? Ku qor aragtidaada kommentiga. Haddii aad jeceshahay falanqaynta kubadda cagta, ha iloobin inaad like saarto fiidiyowga, sidoo kale aad subscribe channelka dhahdo si aadan u seegin
falanqaynta xiisaha badan ee aan mar walba kusoo gudbino halkan. Mahadsanidin daawashadiina. Bye bye.